عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين وسلامنا أصحابتي ميل باتشوفتان عشان كوري waxaan kaga soo hadalnay waxa loo yaqaan percentage. Ka percentage ka waxaan nidhi waa fraction walba oo hooseeyo boqolka yahay. Sidaa awgeed percentage wax kale maaha waa special fraction. Fraction kaas oo hooseeyo boqolka yahay waxaan ku magacaabnay percentage ama boqolii. Sidaa awgeed waxaan doonaynaa inaan euro solution ka bixino casharka hore marka qofku inuu fahmo fiican percentage waxa loo wado. Marka percentage marka qaar waxa lagu magacaabaa percent. wax kale maaha percent beer waxa uu taagan tahay horta waa for each centna waxa uu taagan tahay boqol sax xisaabta wala ku naqaano cent waa boqol kilo waa kun milli waa kun marka cent waxa uu taagan tahay boqol sidaa awgeed waxa weeye waa beer 100 weeye marka shaygu fraction hadduu hooseeyo boqol noqdo waxa lagu magacaabay percentage ama percent sidaa awgeed calaamadna waa la siiyo numberka marka saab qoslo hooseeyo boqol noqdo calaamada saynkaasna waa la siiyay calaamadaas loo garanayo inuu shaygu inta boqolka shay ka yahay marka percentage-ku micnihiisu waa intaas percentage-ku waa fraction walba oo hooseeyo boqol noqdo marka casharka ka koreeyo waxaan kaga soo hadalnay marka fraction haystid inaan boqol ka dhigi karno hadaan tusaale yar ka bixino marka euro xusuusina for example oo kale waxaan haystaa for example waxaan haystaa laba loo qaybiyay 5 marka laba loo qaybiyay 5 waa fraction waxaan ka dhigi karaa marka boqol iyo 10 lagu soo qornay kale waxaan ku dhufanayaa boqol marka boqol ku dhufto tan 5 baan u qaybinayaa waa hal tan 5 baan u qaybinayaa waa 20 laba lagu dhuftay 40 na waa laba lagu dhuftay 20 waa 40 waa 40% marka fraction haddaan haysto waxaan tegi karaa boqoley maanta waxaan doonaynaa inaan anagu boqoley haysanaa fraction dib ugu noqono marka haddaan 40 kaas arnaa dib ugu celino tusaalahaan 40 kaas inaan dib ugu celino meeshu kay tusaalahaan waxa lagu leeyahay boqoley u bedel fraction marka 40% hadda ka hadda soo saarnay inaan doonaynaa inaan intiisa dib ugu celino marka maadaama hadda percentage tahay boqolkan waxaan nidhi hooseeyo boqol yahay min calaamadaas la siiyaa in hadda boqolkooda كليس كان حلو قرنا فرتنا لوقي بقول شيء عليه هذا قرنا مركان ساو قرنا كدلو في سوق سوق بيننا دل ايبر كان يبر كان صباحيا ولا يور دي ايبر لوقي وصباحيا لبا وقيبي افر ولا 8 لوقي لبا واشن marka xaga sare waxa soo baxay wala xaga hooseeyo waa 5 marka hadeer fraction ku ka yiri aad ugu celin marka dan fraction ka aan ku celin karnaa boqolada waxa ka dhigi karnaa fraction waxa ka dhigi karnaa boqolay marka fraction kan waxaan soo qori karaa decimal oo waxa kale oo yar muhiim ah fractionada iyo percentage ka decimal saddex waa isku bedeli karaa hadaan laba u qaybino shan hadaan laba u qaybino waa 0.4 waa 0.4 marka xisaabta pointidana waxa la dhahaa decimal marka hadda percentage baa ka yimi fraction aan bedelay decimal buu bedelay decimal waxa weeye عايز أقول لك أني سياسو قيمنا كليا من الشان لو قيمي لبا كحاسب معايا 0.4 مركا هدام هاستفتح decimal كان هنكون نقرأ هنكدي كرا fraction ما كدي كرا percentage ما كدي كرا سؤال هذا سؤال بيهند fraction هذا هاستو decimal سؤال هذا 0.4 هذا هاستو ده سيني ده 0.4 كابر نأكل إنه inaan ku celino fraction ku celino marka 0.4 baan sanaa oo kale waa decimal waxa uu bedeshaa fraction ku wax si kale ugu bedel maayo clear aan sameynaa inta uu kaga baxo point marka hadda wuxuu ku jira point kaas ku jira marka point inta kaga baxan xagga sare xaqos ku dhufanaya marka 0.4 من بوينت كبح طبعا هذا كله أفر بيسو بحسن حق وصلنا حق قصون يعني هل حق سرع حقول فنا طبعا حق وصلنا حقول فنا طبعا راح يسو بحسن هذا 0.4 حقول فنا طبعا وأفر هذا حقول فنا طبعا وطبعا كي مكا أفر لوقي بطبعا بيسو بحسن أفر لوقي بطبعا هذا صفر يا هذا لوقي ولا هذا تن عشان طبعا هذا لوقي بيلا ولا عشان بس تاس أكتب دي بقولي
marka fraction kana decimal kana waxa lagu celin karaa fraction kana waxaan ku sii dhigi karnaa percentage hadda ka hor ugu dhigay saas u dhigna marka saddexdoodaba kii aan haysto kii kale ka dhigi karaa haddaan ka tusaale kala bixino tusaalahan kale hadda dio kale haddaan bixino tusaalahan kale waxaan haystaa 50% 50% marka waxa ka dhigi karaa fraction dib loo bedelo waxa ka dhigi karaa fraction waxaan leeyahay 50 loo qaybiyo 100 hadii labadana euro su jira tan qayb waa hal tan qayb waa labo waa half kan hadda fraction adaa ka dhigo fraction kaas hadda ka dhigo decimal waa 0.5 waxaan haystay 100 waxa ka dhigay fraction waxaan ka sii decimal kana waan ku celin karaa isna fraction ma ka dhigi karaa tusaalahan haddaan bixino hadda 0.5 haddaan qadin haddaan ku celino 0.5 haddaan sidii ku celino 0.5 baan haysta tusaalahan oo kale waxaan ka dhigi karaa marka 5 haddaba 0.5 tahay waxaan ku dhufanaa meel wax boonti ka saara marka kaliya waxaan ku dhufanaa 10 ku dhufanaa xagga hoose maadaama hal u qasoyo 10 ku dhufanaa marka lambar ka saar haddii boonti halkaas ku jira hadduu boonti god kale ku jira waxaan ku dhufanaa boqol hadduu ka saddexaad ku jira kuma ku dhufanaa meel xagga sarana min kun xagga hoose ku marka 5 haddii lagu dhufto 0.5 haddii 10 lagu dhufto waa 5 xagga hoose waxa ka soo baxsa 10 oo micnaheedu hal lagu dhuftay 10 waa 10kii kadibna waxaan u qaybinaa 5 qayb waa hal tan 5 qayb waa labo waxa ka soo baxa half kaas ka soo baxsa marka half ku ka yimid 0.5 kan half ku ka yimid haddana marka 0.5 kan waxaan u bedelinay fraction marka decimalka ay baa ku dhigtaa fraction waxa ka dhigi kartaa fraction haddii aan marka tusaalahan oo kale haddaan haysto marka boqolay oo kale bisna waxaan ka dhigi karaa decimal dan tusaale ka bixino dan tusaale f ka bixino oo kale haddaan haysto boqolay aan direct rabaan u tago boqolay tusaalahan oo kale waxaan haystaa 5% baan haystaa 5% haddaan rabaan u tago direct micnihi decimalka tusaalahan waxaan leeyahay 5 loo qaybiyo 100 marka 5 loo qaybiyo 100 sida caadi ah noqon kara maadaama aan decimal doonayo 100 kan loo qaybinayo inta marka godka koowaad micnihi xagga ka soo baxsan godka koowaad oo 10 kale maana godka labaad doonaya marka 0 ku bixinaya marka waxaan wasaa 0.05 because of 100 hadii loo qaybiyo laba god buu guuraa micnihi godka koowaad kan godka labaad kan marka 0.5 marka direct loo tikraa decimalki haddaan decimalka hadda aan waxa ka dhigi karaa misal boqolay marka saddexda waa isku bedeli karaa decimalka hadda 0.5 ka haddaan rabaa boqolay ku celiyo boqolay ku dhufana marka daan tusaale 0.05 waa decimal waxa laga boqolay ka dhig waxaan bedelayaa boqolay waxa lagu yiri converted to the percentage marka percentage ka boqolay ku dhufana inta koodka ka baxdo micnihi hadda inta waa ka baxdaa boqol ka boqol ma ku dhufana tan ka 0.05 micnihi boqol ma ku dhufana hadda uu bedelayo number wuxuu yahay boqol la iska dhufana waxay soo baxaysaa 5% marka saas aan uga dhigi karaa lambarkaan doonayo bixino tusaalahaan kale waxaan haystaa 62.5% baan haystaa 62% haddii lagu yiraahdo waxa bedeshaa fraction oo waxa bedeshaa decimal bedel kale waxaan u qaybinayaa 62.5 boqol baan u qaybinayaa kama kan boqol qaybiyo point ka hadda wuxuu joogaa halkaas joogaa laba gudub marka dib u guuraa because boqolku waxa weeye waa 10 gudub 10 kala gudub weyn u guuraa haddii aysan point wax ka ku jiri lahayn oo point aysan lahayn point xagaas ka soo bilaabi lahaa waxaata point meeshu yaalo buu ka sii micnaheedu xagaas u taagan laba gudub guuriya haddii xaga loo leeyahay laba gudub sii guuriya sida ay hadda halkaas u yaala point good kan iyo god kala bad guuriya waxa weeye 0.62 kaas aan ku dhigi karaa ka boqolayda marka boqolay haysto waxaan ka dhigi karaa decimal haddaan haysto decimal kana waxaan ka dhigi karaa boqolay hadda boqolay inta ka dhigno hadda tabteeda ku soo celino
هذا تنا تبتدي وسعنا 0.625 كاس بل حاجة تا بقول لي كل يوم حسبنا 0.625 هقول فانا بقول بس كان بقول لفتو صدق لما قلت بحب جوري أنا عندك كان لما قلت بجوري قلت هو طبعا كواد قلت كاسو معنا يعني طبعا كلا حاجة معنا طبعا كواد حاجة بتلعب تنا كنا هشتغل مكان أنا واسع 2.5 percentage كبقول هذا كله percentage ما راعي على هذا راعي هذا التاسنا تبتدي وسعنا مكان صدق هذا ضبع يعني fraction كان iyo percentage ka decimal ka saddexdaba waa isku bedeli karaa marka kaartida marka aad bedeli kartaa waxa mar waxa ka iman kartaa decimal waxa tagi kartaa percentage ka si loogu soo bedelo fraction ka hadalnay marka fraction ay sidana percentage loogu bedelo ka hadalnay marka percentage joogtina fractions maxay bedeli kartaa decimal ka hadalnay marka saddexdaba kii aragtida bedeli kartaa marka lagu duro marka kii aragtida jecesatid markaas ku jira casharkeena والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.